waa mahadsan tahay TC-ga idaacadda Goobjoog shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay hambalyeynta munaasabadda doorashada madaxweynaha dowladda federaalka iyo xaalado aan isleeyahay waa muhiim marka koowaad ilaahay baa mahad leh dadka soo waxaan u mahad celinayaa una hambalyeynaya baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo codkoodii ugu hiiliyay ummadda Soomaaliyeed kana badbaadiyay runtii hubanti la'aan siyaasadeed iyo baqdin ummadda Soomaaliyeed ku taagneed oo laga baqayay inay maanta go'aankooda ku gaaraan mid ummadda Soomaaliyeed dib ka dhiba ayaguna bariis wax ka qaban karin waxay sameeyeen taariikh wax ku ool ah ummadda Soomaaliyeed oo gashay markay doorteen madaxweyne Soomaaliyeed oo la hubo inuu yahay shakhsi lagu yaqaano dulqaad iyo dad isku wadid oo maanta aan isleeyahay ma jirin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne uga habboonaa ay u dooran lahaayeen marka horta waxaan hambalyeeyay ka bilaabayaa baarlamaanka labada aqalka sare iyo golaha shacabka aad iyo aad baan mahadsantahay dadka waxaan u hambalyeynayaa una duceynayaa madaxweynaha la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay xilkaas kula garab galo waxa ku sugaysa wadan 5 sano iyo dheeraad ku soo jiray runtii aburin baqdin gelin qaab dibaato marka meesha uga tagtay iyo meel horta ka sii dambaysto horta ka soo bilaabay ducaan kugu filanahay ilaahay kula garab galo taasna waan kugu ducaynaa waan kugu hambalyeynaa waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo tiimkiisa guusha ay ka gaareen hogaamintii doorashada oo la'aantood runtii waddankaani maanta waxaan dhihi karaa Maxamed Xuseen Rooble iyo tiimkiisa waddankan waxay ka badbaashay haadaan weyn oo waddanku ku socday khatar weyn aad iyo aad baan u mahadsantahay baal dahaba ayaad helaysaa ummadda Soomaaliyeed waa kayd ku yaalla weeye aad iyo aad baan u mahadsantahay mudane ra'iisul wasaare inta waxaan rabaa laba arrimood inta koowaad waxa weeye madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud sida ballan qaaday waxaa jira arrimo aan is-afiska iyo kala aartila'aanta furtaminta koowaad ku ah 5,000 ama 7,000 oo wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaan jaan iyo cirib meel dhigan la aqoon arrintaas waxaan kugula talinayaa inaad ka dhigto ahmiyaddeeda koowaad inaad dadkaas dhalinyarada Soomaaliyeed oo maantay lagu dadka ama aad ballan qaaday xilligaaga ololaha inay furtaminta koowaad ku noqonayso inaad ka bilowdo lambar 2 waxaan dhihi lahaa ku xiji badbaadinta Galmudug waddanku waa federaal dowlad goboleedka Galmudug wuxuu ku jiraa khatar ah inaad hadhow laga soo bilaabo from zero madaxweynihii halkan uu joogaa olole maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayuu ku jiray walina xamar uu joogaa nabadgelyo waddanka kama jirto inuu gacanta ka baxay khatar u tahay waxaan kaa codsanaynaa arrinta Galmudug inaad ku lamaaniso 5,000 oo wiil iyo ka badan walisha aan ku sheegay ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa doorashadaas dhacday ilaahay ummadda madaxweynaha loo duceeyo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo idaacadda iyo TC Goobjoog waxaan soo jeedinayaa in loo aqoonsado halgan idaacad iyo TC taariikh ku leh codka iyo isbarbartaaga xorriyadda hawlka iyo diidmada caburinta Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud TC-ga iyo idaacadda Goobjoog inaad siiso shahaadada abaalmarinta ugu horeysa ee u dagaalanka xorriyadda hawlka diidmada caburinta diidmada dictatoriyadda ayada iyo wariyaasha maamulka in lagu abaalmariyo soo jeedinayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed guul baarlamaanka Soomaaliyeed guul madaxweynaha guul ra'iisul wasaaraha guul dowlad goboleedka Galmudugna waxaan dhihi lahaa maanta ha loo istaago anoo ku hadlay magaca madaxda badbaadada Galmudug ayaan ku jeediyay shirkan saxaafadeed aad iyo aad baan u mahadsantihiin